سؤال saddexaad waxaan weydiin doonaa hal abuurad ganacsi aasaasayasha Inzohome Ikram Xasan sida badan sida ogsanaa suuqyada shaqada marka laga hadlaayo waxa ku badan ragga Soomaha suuqa shaqada ayaa ku badan ragga ayaa ku badan sidee haweenka loo kordhin karaa inay fursadaha shaqo suuqa qayb ay ka noqdaan talooyin guud ayaan ka rabnaa hadii ilaahay insha Allah ku soo dhawow Ikram Xasan horta oo ku faraxsanaa maanta inaan hor joogo jiidan qurquruxda badan oo gabdhaha wiilal iskugu jiro laakiin su'aasheeda gabdhaha toos u quseeydaa marka wiilasha raali ha noqdaan wax yar ragga horta way nooga badan yihiin markii suuqa shaqada la joogo marka su'aasha waxay tahay sidee yacni gabdhaheena aan kor ugu soo kici karnaa oo suuqa shaqada annagana u soo geli karnaa oo raggii aan ula tartami karnaa hadday noqoto marka waxbarashada horta muhiim waaye adinka dhanna waxa waa soo wada barateen hadeertaan arday soo qalin jibiyaatiin soo maahan istaabkaas waa kasoo gudubno oo sidee suuqa shaqada u geli karnaa maxaa yacni waxbarashadii kadibna maxaan qaban karaa gabdhaha yacni waxyaalaha aan u baahannahay inaan iska dhisno xagga suuqa shaqada waa inaan horta xirfadeena siyaadino wax badanna waa laga hadlay xirfadda waa lagu soo celiyey markiina isweydiinaysiina laga yaabaa war xirfaddan la sheegayo maxaan ka samayn karaa shaqo ma bahaye meel shaqal oo laga shaqeeyana ma joogiyeen xirfadda waxyaalaha lagu dhisi karo waxaa ka mid ah inuu yacni qofka keliya uusan ka fikirin meel uu mushaarka qaadanayo inuu subaxii intuu ka laho uu kasoo shaqeeyo waa in si volunteer ah u shaqey kartiin sax waaye qof walba yacni gool wuxuu leeyahay inuu shaqeeyo rabaa inuu yacni mushaar soo galo rabaa oo naftiisa xalliyo waa dareemi karnaa laakiin haddana haddaan waxba shaqaa lahaynin suuqiina loo baahan yahay in la aado yacni waddo waa in la helo oo suuqi lagu galo taasna waxay noqon kartaa yacni inaad si volunteer ah dad u shaqey kara aad tihiin oo suuqa shaqada wax kusoo siyaadi karo taasoo kaa caawinayso inaad wax badan ka barato suuqii ma fahamteen waddadiinina aad ku gaartiin aragtiin aad ku gaartiin sidoo kaleeto markaad shaqo dalbanaysid waxaa u baahan tahay CV-gaada inuu kuu qurux badnaado taasna waxaa keeni karta inaad shaqada yacni experience aa u leedahay fresh graduate aad tahay horey uma aadan soo shaqaynin marka CV-gaada yacni inaad CV qurux badan gudbi kartid ay kaa saacidaysaa inaad xirfadaada dhistid sidoo kale gudoomiyaha Premier Bank geedi wuxuu ka hadlay communicationka qofka inuu skillskiisa u dhiso instead aan mobiladeena iska haysano aan TikTok iska daawanayno oo maalinta noogu bilaabanay maalinta noogu dhamaanayso waa inaan ka shaqeyno inaan luqadaha barano maanta wadanka shaqooyinka wuxuu u badan yahay okay ani Inzohome ka shaqeeyaa operation and HR qaybtaas aan qaabilsanahay maxaa u baahanahay qof salisa markaan qaadanayo qofka saliska waxaa uga baahanahay inuu yaqaan yacni qofka luqadii Englishka inuu yaqaan yes wadankeena Soomaaliya waaye in isweydiinay sida laga yaabo ani Soomaaliya jooga Soomaaliya ku hadla sax waaye Soomaaliya ku hadasha laakiin haddana adduunka inaan la jaan qaadi karno waaye dad Soomaaliya waxaa jira banaanka ka imaanayo oo luqadii aqoonin ganacsiyadeena yacni banaankii ku xiran yihiin ma fahamteen hadda Inzohome waa company franchise yaa la dhil gareynayna dad oo yacni luqada Englishka bis ku hadla la dhil gareynayna marka waxaa ku qasbanahay inaan yacni luqadiina taqaanid qofka kuu shaqeynaayo oo luqadii yaqaano marka waqtigeena ugu badan aan ku bixino inaan xirfadeena ku dhisno luqadaha aan ku barano aan waqti gelino nafteena si biri markaan suuqa u imaano yacni dad la qaabili karaa u noqono sidoo kaleeto inaan noqotiin gabdhaha ina yacni dad oo network samaysta inaan noqotiin team ina ahaatiin gabdhaha jaamacadaha markay ka baxayaan ayagoo group oo saaxiibaha ka baxaan soo maahan laakiin jaamacadaha markii la dhameeyo qof walba dantiisa u raacanaya instead asaas samaynaysiin yacni ku fikira wax adinka aad qabsan kartiin opportunity aad adinka ka faa'iidaysan kartiin team ahaan inaad wada shaqaysatiin inaad ku fikirtiin oo wax la imaatiin oo hal abuur samaysiin hana ka cabsanina markasta codkiina in la maqlo qofka markuu wax badan ku fikiraayo yididiilo badan iyo hami badan marka uu leeyahay wax way u suurtagelayaan there is an English proverb oo dhahayo where there is a will there is a way yacni mar kasta oo qofka rabo inuu wax sameeyo caqabad kasta ka hor imaato qofkii ka gudbaa noqonee marka inaad team intaa samaysatiin adinka aad fikirtiin adinka hal abuur la imaatiin markaas kadibna wadadii waa helay marka wixii aad gacanta aad ku haysid
hana niyad jabinina mar kasto waa mahadsantaan su-aasha kale waxaan siin doonaa isla ikraam xasan sidee habluhu ama haweenka ku ogaan karaan shaqooyinka ay ragga kaga fiican yihiin ama ragga ay kaga habboon yihiin marka waa su-aal aad u fudud aan malaynaa wayna fududahay wayna adag tahay horta qof kasta wuxuu leeyahay waxa isaga u gooniya oo asaga ka dhex buuxayo qof ma jiro yacni si gooniya loo dhahayo waxaas inaad qabatid waayo soo maahan koosfakaltiyo kala duwanaa ka soo baxdeen qof walba meejaro kala duwanoona soo barteen riyooyinkiinana way kala duwan yihiin marka haddii la yidhaahdo shaqooyinka aan ragga uga fiicanaha waa kuwee dee ragga waxay qaban karaan waa wada qaban karnaa oo maleynaa wax yar marka laga reebo marka waxyaalaha laakiin haddaan si gooni u dhahno maxaa uga fiicanaha ragga oo waddankeena hadda xaaladan la joogo u baahan yahay waxaa ka mid a waxyaalaha designinka ka mid a gabdhaha designinka aad ay ugu fiican yihiin in yacni ay wax design gareeyaan ay wax ka bedelaan yacni waxa haddeertaan jiro aad ay ugu fiican yihiin sidoo kale ragga ammaanadan waa uga fiicannahay markuu maxelaan maamulada waa ina loo dhiibaa raggan marka yaana niyad jabin insha allah wax badan oo qabsan karnaa jiro wixii ragga qaban karaan waa qaban karnaa dadaal dheeri aan muujino hadda aniga waxaan ahay qof dhalinyaro adinka camala oo shaqo ku dhex jirto haddana qayb maamula kusii jirto marka waxaan rabaa inaan laba wax uga faa'iideeyo wiilashii gabdhahaba suuqa shaqada marka aadiin ilaahay inuu idin sahlaa ilaahay uu idin sahlaaya insha allah shaqooyinka waa shaqaynaysiin waana naga soo mid noqonaysiin laakiin qodobo waxaa jiro aad muhiim u ah wiilashii gabdhahaba way wada qusaydaa markii aad shaqada ku jirto shirkadaas aad u shaqaynaysid waxaa muhiima qof firfircoon inaad noqotid shaqadiisana daacadka ah qofka hadda aniga dad oo yacni HR qayba HR aan joogaa dadka shaqada u firfircoon shaqada u dhiiran yacni subax kasto ayagoo weji furan oo faraxsan shaqada imaanayo waa ka jeclahay dadka ayagoo markasta moodkooda qaldayan shaqada imaanayo marka muhiim waaye inaad firfircoonidaas aad la imaatiin to a point hadda waxaa gaaraysaa qofka shirkadan iska leh uu ka fikero adigoon $1 ku darsanin inaad ka mid noqotid shirkadan jacayl uu qabo darteeda iyo shaqo wanaagaada marka shaqo wanaag badan inaad muujisiin inaa adinkoo especially gabdhahana xoogaa moodkeena markasta oo iska qaldamayaan marka shaqadeena iyo banaanka waxa ka jiro aan kala saarno oo shaqada markaa imaano weji furan firfircooni yacni rabitaan shaqada aan la imaano dhinaca kaleeto haddaad tahay qof asaga hal abuur la imaaday oo yacni wax u gooniya samaystana inaad noqotid qof maamul wanaagsan ah qof dadka si daacada ula dhaqmo yacni oo dadku u shaqaynayo soo jiita inaad noqotid marka waa mahadsantihiin ilaahay ha idinku guuleeya nolosha ilaahay ha idinku guuleeya shaqooyinkiina soo dhawaada